Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasheena qiimaha ee qaayaha badan meel kasta aad dunida ka joogtiin waa idin salaamay waa walaashiin shoosho xaaji janal insha Allah maanta waxaa idin wadaa cunto karis ma jiro insha Allah simple hena oo ilaan fudud oo qaabka suudaanta insha Allah aa u saari doono si yar oo fududna u sameyn doono insha Allah aniga iloobina subscribe-ka like-ta share-ka insha Allah kusoo dhawaada janalka iyo qaabka cilaanka u qasi doono iyo sidaan u marin doono insha Allah cilaanka isticmaal waa cilaan oo Yemenka ah cilaan Yemeniga ma sha Allah madow uu noqdaa qurux uu noqdaa insha Allah qiyaasta ka isticmaali doono waa 5 qaando ani guriga iska soo dhigtaa nus kiilo camal iska soo gataa insha Allah waxaa ka isticmaalna 5 qaando insha Allah waxaa kaloo ku dari doonaa sokorta cilaanka waxay ka dhigtaa guduud ma sha Allah qurux ay ka dhigtaa qaandi iyo haaf insha Allah sidoo kale waxaa ku dari doonaa waa liin dhanaanta cilaanka waxay ka ilaalinaysaa inuu ka jacjac ka yeeshto jajab uu ka yeeshto insha Allah qurux guduud oo qurux badan oo ka saacida sidoo kale cilaanka biyaha ku qasin insha Allah inaad ku dadaal caleenta shaaha aan kariyay ayadoo qanda insha Allah ku qasi doonaa insha Allah koobka wax yar dhiman aan ku qasi doonaa insha Allah koobka wax yar dhiman aan ku qasi doonaa insha Allah si fiican cilaanka u qas isku dhex gali inta aad qasin ka hor si uu ku qamiiro oo isku ka dhex galo insha Allah markaa qasti hadda biyo ma ahan meesha wax ku jiro insha Allah waa dalawandi midka kulul iyo midka qabow labadaba la isku daraa mid kulul waxaa jiro oo $1 u yar iyo midka qabow caadiga ah labadaas isku soo daray insha Allah cilaanka wuxuu ku noqonaa ma sha Allah madow qurux badan oo laga sheekeyn doono bacda jalaatada lagu xiro ama barafka insha Allah ku xiranaya si gacanta kale marka ku saarayo iyaga gaarin insha Allah waa qaab fudud oo cilaankan uu ka gaarin gacmaha insha Allah aad saari doontid ma sha Allah insha Allah waxa galeena qaabkii sharootadii aan u jarjaran lahayn halkaas waxa ku ah sakiinta oo weejajabaysa oo loogu talagalay in qayb markii afka baxdo in qaybta kale hadana iska jabiso qaybta kale aad baxsato insha Allah iyo sharootadii mastaradan insha Allah sharootada ku saxan doonaa si sila eksi dhirka qaab ahaan ugu jiro insha Allah qaabkaas ugu soo jaraysaa si dhir badan oo qurux badan oo isla eg insha Allah kugu soo bixi doonto wiilka aad ku sameynaysid inuu noqdo waa wiil siman insha Allah ama saxan siman ama geed oo siman insha Allah saasa ugu soo wadeynaa suulka naqshadan saari doon naqshadaas waaye suulka markaas faraha markaas naqshadaas ku soo dhameeysid naqshada labaad aan sameyn doono isla sidii la amal waaye insha Allah saasa ugu soo laabaysaa qaybta koowaad waa sharootada waaweyn inay hoos ahaato waaye hadii kale cilaanka ka gaarayo qaab duru kaaga soo baxaa insha Allah qaybta dhaxda gelinsana waa qayb yar oo fiini ah oo qurux badan ma sha Allah waa simple cilaankan haduu qurux kuugu noqonaa waa wax yar oo fudud oo qofku isku saari karo insha Allah ma sha Allah insha Allah sida soo dhameynayna ما شاء الله سكسو دميني دحدي على عشاء إن شاء الله هدنا أسارينا وعلان يرو بسيط وقفك عادي هان واسكو سارين كارو قفك شروط أقواني إنكي إن شاء الله عارجين أسكو دي دونتين قروح بدن أسمين دونتين إن شاء الله نقشدان ونقشد أو استلاف دافع كديغايو إن شاء الله وإسدان داف لي كديغي سادو قروح بدن سي قروح بدن وكوكو صوبحا إن شاء الله isla dhaafkaas le ku wadaysaa saas le ku wadaysaa hadan dhinac kale ka soo saaraysaa hadan dhinac kale insha Allah ma sha Allah sidaas ku soo waday ma sha Allah quruxdaas nooga soo baxay bacda marka cilaanka qaabkaan ay noqonaysaa marka gacanta kale ma ka gaarayso waan saaraysaa qofka kaligiisa amal uu isku saari karaa ma sha Allah markaan saas ku soo dhameeyay qaybta hoos waaweynkeeda waa ujeedaan sida noo caawisay cilaanka ma ka gaarayo geesaha
markasta sharooto saaraysid dhinacyada geesaha waxaa ka dhigtaa sharooto bilaar ah si uu kaa gaarin cilaanka dhinaca kale oo loo baahnayn insha allah. maasha allah kani ilaali insha allah. weliga haddaa sharooto saarinka insha allah waxaa rajeynayaa inaan isku dayo qurux uu kugu soo bixi doono. maasha allah cilaankeena wuu noo khalalay waa ka dejinaysaa insha allah. alaab yar oo qurux badan oo fudud ahna waaye inaa waxaa rajeynaa isku dayi doontiin. maasha allah waa kaa cilaankeenii waa cilaanka waxaan saaray shalay haddana waxaa video ku duubaya waa maanta. maasha allah hadda cilaankeena madowgaas oo noo noqday quruxdaas maasha allah. insha allah video xigo intaa ku kulmi doona. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bye bye.